مروين iyo mudanayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal meel kastoo aad joogtaan habeen wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan warbixin dalka iyo dibadda habeenkani caawa inaga soo gaadhay qodobada warka caawa ugu door korona daawadayaal waxa ay kala yihiin munaasabada cali masaarka madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa shalay ka dhacday guriga ummadda baarlamaanka dalka Greega ayaa waxay ansixiyeen qorshe uu soo bandhigay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Greega. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kulaha raadiyaha iyo telefishinka Djibouti waxa wali soo gaadhay dhambalada hambalyada ee madaxweynaha jamhuuriyadda lagu tahnideynayo. Dhambaladii ugu dambeeyay waxa TV-ga qaran soo gaarsiiyay qorba joogta reer Djibouti ee dalka Suud gaar ahaan Samatar Maxamed Cusmaan حسن معي وكمد عقاش gobolka Ubuk dhamaan dadkaasi waxay madaxweynaha u rajeynayaan inuu ku guuleysto hawsha qaranku mar kale uu eegmaday madaxweynaha jamhuuriyadda mudan Ismaaciil Cumar Geele ayaa maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay wafdi imaal qabeena ah oo ka socda dalka Shiinaha wafdigaasi waxa horkacayay agaasimaha xafiiska tamarta ee jaamacadda Bekaan waftigaasi waxa ay madaxweynaha jamhuuriyadda soo gaarsiiyeen daraasaad ay ka sameeyeen dhismaha xarunta warshadeynta ee goobaha ka caagan cashuuraadka xaruntaasi warshadeynta waxa ay qorsheysan tahay in la bilaabo dhismaheega bisha Juwiye ee nagu soo aadan kulankaasi waxa ka qayb qaatay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Maxamed Cali Yuusuf iyo wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda qaabilsan warshadeynta kulankaasi kadib waxa aan waraysi la yeelanay gudoomiyaha waftigaasi waxaana uu ugu horeyn madaxweynaha jamhuuriyadda uga mahadceliyay soo dhaweynta wanaagsan intaasi kadib waxa uu ka hadlay qodobada ay ka wada xaajoodeen madaxweynaha jamhuuriyadda mudan Ismaaciil Cumar Geele iyo warbixinta daraasaadka ay u gudbiyeen ee ku aadan hirgelinta xarunta warshadeynta wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda qaabilsan warshadeynta mudane Ilyas Muuse Adawaale oo isaguna kulankaasi kadib aan waraysi la yeelanay waxa uu sheegay in madaxweynaha jamhuuriyaddu uu si wanaagsan u soo dhaweeyay waqtigaasi Shiinaha madaxweynaha soo celiyay oo qorsheynayay 2 kilomitir zone industrial ka looranay meesha warshadeynta aan ugu talagalnay ee ah in mandaqadani zone franchka ee cashuuraadka ka caagan oo imika 2 kilomitir kare waxaan maanta ka hadalnay waa 6 kilomitir kare weeyaan si ay u raacdo wixii in haamihii lagu keedinayay xoolaha ka imanaya dibadda iyo intii warshadeentaba waxa hadaba halkani maanta dood badan ba ka dhacday hay'adda madaxweynuhu isagu hogaaminayay doodaasna waxay ahayd qaraaro qaarkood oo degdeg ah in ay Djibouti iyo madaxweynuhu qaato madaxweynuhuna qaraaradii uu qaatay qaraaradaas waxaan isleenahay muhiim u ah mustaqbalka iyo in sida loo dhisayo mustaqbalka iyo shaqo abuurka Djibouti taasina waa to Djibouti la ka rabay waa to madaxweynaha la ka rabay isaguna sideedii buu maartay maanta uu qaatay shaqadan waxaan danaynaynaa inay dhagaxii ugu horeeyay amba dhismihii ugu horeeyay inuu bishan Juyeeba uu bilaamo آخر سنة كان ورشديه وجوري أي إماني كران هدي وقدم بيسول 6 كيلومتر كاري إن شاء الله ماذا سنة كسوس تهرتهد دور ورشدود يو إن هيدا بدن أو زون فرانش كجديد كا أي أصل شقة جدونان دور كون أو شقة نانك أبور دونو
kaasi waxuu ahaa wasiirka maaliyadda dhaqaalaha qaabilsan warshadeynta oo faahfaahin naga siiyey kulankii dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda iyo waftigaasi ka socda Shiinaha. Madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele kadib markii uu ku guuleystay 8 bishii Abriil ee aanu soo dhaafnay doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday dalka guriga ummadda, waxaa maalintii shalay ka qabsoontay munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda, waxaana ka qayb qaatay mas'uuliyiin sare oo iskugu jiray rayid iyo military. munaasabadaasi caleemasaarka ah waxaa kaloo iskugu yimiday kutumeeye wafuud ah oo ka kala yimiday dowladda daafiga, kuwaasi oo iskugu jiray hogaamiyeyaal iyo wakiilo ka socday hay-adaha dawliga ah ee kuwa qaramada midoobay, jaamacadda carabta iyo midowga Afrika. madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele markii uu soo gaaray munaasabadaasi waxa uu salaan sharaf hortaba ka qaatay qaar ka mid ah cutubiyada ciidanka qalabka sida. munaasabadaasi markii ay sida rasmiga u bilaamatay waxaa ka hadlay ugu horeyn gudoomiyaha golaha baarlamaanka gudoomiyaha golaha dastuuriga mudane Cabdi Ibraahim Cubsiye. intaasi kadib taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida Janna Zakariya Sheekh Ibraahim ayaa u geliyay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele bilada muujinaysa xil gudoonka madaxtinimo ee 5 sano ee nagu soo aadan. madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa intaasi kadib si rasmi ah u gudagalay munaasabadda xil u dhaarashada. أقسم بالله العلي العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه، والله على ما أقول شهيد. waxa uu qada sharafeed uu sameeyay madaxda iyo hogaamiyaasha ka qayb qaatay munaasabadii caleemasaarka. madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa qasriga madaxtooyada ku soo dhaweeyay madaxda kale ah madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame, madaxweynaha dalka Suudaan Umar Hassan al-Bashir, ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Haile Mariam Desalegn, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxda kale. marwada koobaad ee dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran ee haweenka Djibouti Marwo Khadra Maxamuud Xayd ayaa iyaduna geesteeda soo dhaweyn wanaagsan u rajeysay marwooyinka koobaad ee wadamada aanu saaxiibka nahay ee ka qayb qaatay munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda. qada sharafeedkaasi ayaa waxaa laga ciyaaray ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka, taasi oo ku soo dhamaatay jawi wanaagsan oo heer sare ah. madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele oo munaasabadaasi khudbad ka jeediyay waxa uu tilmaamay in uu ku talaabsan doono hirgelinta barnaamijka siyaasadeed ee uu hormuudka ka yahay. khudbadii madaxweynaha waxa inoo soo eegay Khadar Cabdilaahi. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihil amiin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam.
Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et du gouvernement, maanta oo ah maalin astaan gaar ah u leh aniga iyo dalkayga waxaan jeclahay ugu horeyn inaan soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyo madaxda iyo hogaamiyeyaasha inagu sharfay si saaxiibtinimo leh joogitaankooga waxaan doonayaa oo kale inaan hambaliyeeyo madaxda wufuudda wadamada walaalka iyo saaxiibka intaba aan nahay iyo shakhsiyaadka kale ee saaxiibka Djibouti la ee sida baaxadda leh inoogu yimid aniga oo ku hadlaya magacayga gaarka iyo ka shicibka reer Djibouti waxaan mid walba u gudbinayaa mahadnaq ballaaran sida ay inoo qadariyeen ee xushmada badan oo ka marakacaysa xidhiidhka walaaltinimo ee dadweynaheena u dhaxeeya si aan u sii wadno shaqadeena waxaan imika ku hor dhaartay hortiina aniga oo Allah awooda leh ku hormaray dhaartaasi si aan u xambaaro mas'uuliyadda qarankaygu ee igmay mas'uuliyaddaasi oo aan soo hayay si ay ku jirto khibrad furfurnaan iyo waliba si isu dabcin iyo isu hoosaysiin ummadda igu sharaftay xilkaasi oo imika mar kale kalsoonidooda iyo cusboonaysiiyey waana sidaasi aniga oo og mas'uuliyaddaasi sababta aan ugu howlgalayo qarankayga aniga oo muujinaya niyad samaan xambaarsan rajo weyn oo ku hamiyaya in 5 sano ee soo socota in aan ku hogaamiyo dowga ugu habboon moondaagan aan bilaabayo oo aan ku galayo aniga oo maanka ku haya shaqo fikradda waajibka ah ee aan qalbiga ugu hayo qof walba oo reer Djibouti ah waa mid muuqata marweyn iyo mudanayaal taageerada aad ii muujiseen 8 Abriil waxay ka turjumaysaa in shicibka reer Djibouti uu si cad u doorbiday in tallaabada hore u qaado ayaga oo tixgelinaya mabaadi'da qaranka iyo hidahooga midnimo istaageersiga nabadda oo intuba ah rukunada jamhuuriyaddeena jamhuuriyadda imika aan nahay maanta kuwii aan ka dhaxalnay waxa ay yihiin oo ay ahaayeen midhaha rabitaanka dadweyne ee ragga iyo haweenka kalsoonidooda ku keenay inay aaminaan mustaqbalkeena wadareed ayaga oo naftooda u horay dadaalka jiilkaasi hore iyo shaqada adag ee jiilka maanta waxay sii wadaysaa xilgudashadeena in jamhuuriyaddeena noqoto mid jiil walba kasbata marweyn iyo mudanayaal way inoo dhici kartaa haddii qof walba oo inaga mid ah heerkiisa uu noqdo mid ku hormara wadaniyadiisa uu noqdo abuuraha fikradaha abaabulaha istaageersiga xambaarsanaha fariimaha caamka ah ee nabadda iyo niyad wanaagga waana sababta aan u doonayno muwaadinimo casri ah oo tusaale wanaagsan ah oo aan u doonayno in aan nabadaasi qaadno anaga oo mid ah oo xor ah ogna awooddeena in aan wax bedeli karno oo isla kolkaasina saameyn wanaagsan ku yeelata maamulkeena anaga oo ka yeelayna mid tixgelin hufnaan iyo qadarin intaba laga helo karo wadaniyadeenu waa in ay xagtaa nidaamkeena waxbarasho si maskax badan iyo dhiiranaan ku jirto si aan u yaqleelno dhismaha hogaamiyeyaasha berri waayo waxbarashadu waa ruuxda jamhuuriyadda wadaniyadeenu waa in ay waxqabadkeena bulsho ka yeesho mid nool oo u soo jeeda baahida kuweena nugul si aan u yaqleelno istaageersiga dadka iyo dhulka oo ah shaqada koowaad ee jamhuuriyadda ugu dambeyn ballanqaadka wadaniyadeenu waa inay sidoo kale ka shaqeysaa barwaaqaynta dhaqaalaheena si aan dhalinyaradeena iyo qoysaskeena u siiso shaqada iyo fursadaha jira ee ay rabaan sidaas darteed waxaan xoogga saarnay si niyad wanaag ah hirgelinta mashaariicda jira oo ah xaqiiqadii kuwo qaali ah hase yeeshee kaalin intee la eg ayay ugu fadhidaa kobaca maanta iyo ka berri waxay yihiin sidaas darteed ama sidaas maqasheen dhismaha wadooyinka marsooyinka dhabada xadiidka oo intuba ah jidadka aan ku helayno barwaaqo dalkeena hase yeeshee sidoo kalena qaaradeena suuro gelinaysa in aan xidhiidh isweydaarsi ganacsi iyo kala faa'iidaysi mug weyn leh aan ka helo oo horseeda kobac sugan oo Afrika iyo Djibouti intaba ah waa inaan horaa haddii aan nahay reer Djibouti iyo ummadda Afrikaanka in aan isku soo dhaweyno ummadda isku keeno awoodeena muujino isdhexgal dhaqaale isku xidhno oo sidaasi colaadaha iyo isku horimaadku waqtigooda uu ku dhaco oo laga tago madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Gile oo khudbadiisa sii wata waxa uu ka hadlay xaaladaha kala duwan ee ka taagan qaaradda Afrika jaamacadda Carabta iyo doorka jamhuuriyadda Djibouti Khadar Cabdilaahi ayaa mar kale inoo sheegay khudbadii madaxweynaha
Nombreux sont ceux qui mettent en doute notre capacité. waxaan doonaynaa in aan kaga dhabayno taariikhda howlkarnimo geesinimo ee qaaradeenna oo ah mid aan go'aansanayno si aan u ilaalino mustaqbalkeena iyo aayaha qaaradeenna waxaynu ka qayb galaynaa horumarka dariskeenna waxaan xaqiijinaynaa dhaqaalaheena inoo gaarka ah miyaynu ahaanaynaa kuwa ku gadaamaysan xaalado tagay iyo mabaadi aan jirin oo cabsi inagula nolaysiiya dariska haddaba macno noocee ayay yeelanaysaa dadaalka uu yeesheen afrikaanka haddii afrika ay weydo in ay isku naxariisato iyo in ay isgacan qabato macnaha noocee ah ayay yeelanaysaa gobonnimadeennu oo si qaali ah ku helay haddii aan sababka ahaano khayraadkeenna marweyn iyo mudanayaal way badan yihiin kuwa shaki geliya awoodeenna aan ku hirgelin karno mashaariicdeenna mustaqbalka waxaan u sheegayaa in aan ku niyadsannahay dhallinyaradeenna haweenka iyo ragga in ay caqabadahaasi ay ka gudbi karaan waan aaminsannahay awoodeenna soo saarka ummad awood leh dowlado adag oo xoog badan oo amniga iyo barwaaqada dadweynaha suga dunidan xilligan oo ay ka jiraan xaalada halisa iyo isku day xag jirnimo oo khatar gelinaysa wada noolaashaheenna waxaan ka aaminay dulqaad iyo deeqsinimo dunidaas oo Jabuuti kaga faanayso inay tahay Afrikaan iyo Carab intaba waxay jamhuuriyadda Jabuuti isku keenaysaa qeexaysaa rabitaankeega adkeynta wadajirka midnimada iyo taageersiga ummadda islaamka xilligan oo dunida islaamku ay ka jiraan xaalado kala qaybiyay waana ka niyad xumaanay burburka magaalooyinka dhismooyinka xadaradaha ee baaba'ay iyo sharaf la'aanta ku habsatay waxaynu ku dadaalaynaa inaan xoojino istaageersigeenna qaadno dowga wadahadalka si aan u beegsanno isfahamka islokolkaasina uga caawino walaalaheenna in aan ku ridno dhabbada wadahadalka iyo wada noolaashaha nabdoon kalsooni badan baan ku qabnaa in ummadeennu tahay ummad ilbax ah oo ku tallaabsatay horumar ballaaran islokolkaasina ka gudbi karaa wax walba oo caqabad ku keeni kara waan hubaa in guusha ugu weyn ay tahay in aan ku xidhno dadkeena mabaadi'da jamhuuriyadda iyo weliba jacaylka aan u muujinayno walaalaheen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka duulay garoonka caalamiga ee diyaaradaha ee Djibouti kadib markii uu ka qayb qaatay munaasabadii cali masaarka madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa garoonka caalamiga ee diyaaradaha ku sii sabootiyay wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha Dr. Jaamac Cilmi Cukiye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya iyo wafdi ballaaran uu horkacayay waxa ay maalintii shalay ka qayb qaateen munaasabadii cali masaarka madaxweynaha jamhuuriyadda oo ka dhacday guriga ummadda isla wararka dalka uun ee habeenkani caawa munaasabad lagu gudoomay buugaag ayaa waxa ay ka dhacday xafiiska buugaagta ee golaha baarlamaanka munaasabadaasi gudoonka buugaagta waxaa gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane Maxamed Cali Xumed waxaana u joogay wakiilka bangiga adduunka Huma Zahra Fatuuxi buugaagtaasi ayaa deeq ah oo soo gaadhay xafiiska documentation-ga ee golaha baarlamaanka munaasabadaasi waxaa ugu horeyn ee ka hadashay wakiilka bangiga adduunka Marwo Huma Zahra Fatuuxi waxaana ay sheegtay ugu horeyn inay ku faraxsan tahay ka qaybgalka munaasabadaasi gudoonka buugaagta ah ee bangiga adduunku soo gaarsiiyay golaha baarlamaanka ee Djibouti intaas kadib waxa ay sheegtay in bangiga adduunku uu sanad walba soo saaro buugaag dhinacyo fara badan ee ka hadlaya sida dhinacyada dhaqaalaha iyo dhinacyada kale ee arrimaha siyaasadda buugaagtani waxa ay wakiilada shacbiga jamhuuriyadda Djibouti u suura gelinayaan baytari amba u fudeydinayaan inay ka helaan macluumaad fara badan oo u sahlaya hawshooda haddii ay noqoto dhinacyada aan korka ku soo sheegnay ugu dambeyn waxa ay sheegtay in buugaagtaasi ay soo gaarsiisay bangiga adduunku ay qayb ka tahay iskaashiga wanaagsan ee u dhaxeeya hay'adaasi caalamiga ah iyo baarlamaanka jamhuuriyadda Djibouti gudoomiyaha golaha baarlamaanka oo munaasabadaasi ka hadlay waxa uu sheegay in ay iskugu yimaadeen munaasabad uu ku gudoomiyay deeqda buugaagta ah
oo kasoo gaadhay wakiilka bangiga adduunka. munaasabadaasi anigoo ku faraxsan in aan ka hadlo buri deeqdani oo markii ugu horeysay ah waxay tahay mid ahmiyad ugu fadhida xubnaha wakiilada bulshada dalkeena. buugaagtani waxa ay xoojin doontaa tayada iyo awoodda xarunta buugaagta lagu akhristo ee golaha baarlamaanka. taasina waxa ay kor u qaadi doontaa buri aqoonta xildhibaanada golaha baarlamaanka iyo shaqaalaha ka howlgala baarlamaanka. deeqdani buugaagta ah waxa ay ka dhalatay cilaaqaadka wanaagsan ee u dhaxeeya Jamhuuriyadda Djibouti iyo bangiga adduunka, gaar ahaan golaha baarlamaanka iyo hay'adaha caalamiga. anigoo magacayga iyo kuwa baarlamaanka Djibouti ku hadlaya waxaan u mahadcelinayaa bangiga adduunka oo halkani ay ku matalayso Marwo Huma Zahra Fatuuxi. gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane Maxamed Cali Xumed ayaa ku qaabilay xafiiskiisa dhismaha golaha baarlamaanka wafdi ka socda dalka Turkiga. wafdigaasi ayaa waxa ay shalay ka qayb qaateen munaasabada caleemasaarka ee madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geele. gudoomiyaha golaha baarlamaanka ayaa hortaba soo dhaweyn wanaagsan u rajiyay wafdigaasi ka socday dawladda Turkiga, kuwaasi oo wakiil u ahaa madaxweynaha dalkaasi Turkiga. intaasi kadib labada dhinac waxa ay ka wada hadleen xiriirka iyo iskaashiga wanaagsan ee u dhaxeeya Jamhuuriyadda Djibouti iyo dalka Turkiga, gaar ahaan xagga labada baarlamaan. sidoo kale gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane Maxamed Cali Xumed ayaa ku qaabilay xafiiskiisa dhismaha ee golaha baarlamaanka wafdiga Shiinaha ee horkacay haweeneyda gudoomiye ku-xigeenka guddiga joogtada ah ee baarlamaanka dalkaasi Shiinaha. wafdigaasi ayaa waxay ka qayb qaateen munaasabada caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda iyagoo oo ka socday madaxweynaha dalkaasi Shiinaha. gudoomiyaha golaha baarlamaanka ayaa soo dhaweyn wanaagsan oo diiran u rajiyay wafdigaasi ka socda jamhuuriyadda shacbiga ee Shiinaha ee aanu saaxiibka nahay. intaasi kadib labada dhinac waxa ay ka wada xaajoodeen dardargelinta cilaaqaadka wanaagsan ee u dhaxeeya Jamhuuriyadda Djibouti iyo Jamhuuriyadda Shacbiga ee Shiinaha. kulankaasi oo ku soo dhamaaday jawi wanaagsan. labada dhinac waxa ay iswadaarsadeen hadiyado kala duwan. isla maanta gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane Maxamed Cali Xumed ayaa qaabilay xafiiskiisa ku qaabilay ee dhismaha golaha baarlamaanka ah wafdi ka socda dalka Japan ee warkacayo Mr. Anadora oo ah xildhibaan ka mid ah baarlamaanka dalkaasi Japan. waftigaasi ayaa waxa ay ka qayb qaateen munaasabada caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda ee maalintii shalay ahayd. gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane Maxamed Cali Xumed ayaa hortaba waftigaasi Japan soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyay. intaasi kadib waxa ay isla soo qaadeen dardargelinta cilaaqaadka labada dal ee xagga dhinacyada farabadan ee ku aadan. kulankaasi waxa uu sidoo kale ku soo dhamaaday jawi heer sare oo ka muuqatay iskaashiga buuxa ee ka dhaxeeya Japan iyo Djibouti. wasiirka waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha Dr. Jaamac Cilmi Cukiye ayaa maanta qaabilay kormeerayaasha cusub ee ku guuleystay tartankii kormeerka waxbarashada hoose. kulankaasi waxaa looga hadlay tababarada rasmiga ah ee ay qaadan doonaan kormeerayaashaasi, waxaana u joogay kulankaasi mas-uuliyiin ka tirsan wasaaraddaasi. wasiirka waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha Dr. Jaamac Cilmi Cukiye ayaa ku hambaliyay kormeerayaasha cusub dadaalka ay ka gaadheen tartankii kormeerayaasha, waxaana uu tilmaamay in ay ka mid noqon doonaan kooxaha kormeerka waxbarasho ee wasaaraddaasi. wasiirku waxa uu sheegay in tababaro kala duwan ay qaadan doonaan, halka qaar ay tegi doonaan dalka Tunisia. Dr. Jaamac Cilmi Cukiye waxa uu tilmaamay in wax badan ay ka qaban doonaan dhinacyada xoojinta waxbarashada, qiimeynta tayada waxbarasho iyo ka shaqeynta u dhaxeeysa dugsiyada waxbarasho iyo maamulka dhexe ee wasaaraddaasi. geestooda mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada qaran ayaa ku hambaliyay kormeerayaasha guusha ay ka gaadheen tartankaasi. kormeerayaasha cusub ayaa iyaguna uga mahad celiyay wasiirka waxbarashada qaran taageeradiisa. maanta xaggan waxaan u joognaa wasiirkii tacliintoona soo dhaweeyay oo xaflad weyn noo qabtay 10kii inspector xaggan ka soo baxay isagoo aad iyo aad noo hambaliyeeyay, annaguna hambaliyaan u celinay aad iyo weyn u ballaaran. waxaan ku faraxsanahay xafladan uu noo qabtay iyo hawshan sida uu hirgeliyo 10ka qof awal 1 iyo 2 un baa la qaadi jiray, maanta lambarka inta leeg ilaahayna uu garab galay. waan ku faraxsanahay. waxaan kalaan leenahay hawshu naga sugayeen waan galnay, ilaahayna ha nala qabto.
agaasimka dhakhtarka Daaralxanaan ayaa qaban qaabiyay munaasabad shahaadooyin lagu qaybinayo shaqaalaha dhakhtarkaasi waxaana munaasabadaasi ay ka dhacday qolka amphitheater-ka ee macadka sare ee sayniska iyo cilmiga waxaana u joogay agaasimaha dhakhtarka Daaralxanaan agaasimaha kuliyadda dhakhtarnimada ee ESSS agaasimaha farsamo ee dhakhtarkaasi wakiilka Sacuudi hay'adda FUNAM iyo qaar ka tirsan shaqaalaha Daaralxanaan waxaana abaalmarintaasi gudoomay shaqaalaha ka howlgala dhinacyada umulisooyinka shaybaadhada baramedikooga iyo kooxaha u qaabilsan suuxinta waxayna dhammaantood kor u qaadeen tayada caafimaad ee dhakhtarkaasi iyagoo markaasi muujiyay shaqo tayo leh mid ka mid ah mas'uuliyiinta munaasabadaasi oo ka hadashay waxa ay ku hambalyeysay haweenka iyo in ragga gudoomay shahaadooyinka hawsha wanaagsan ee ay muujiyeen oo qayb ka ah tiri horumarinta adeegga caafimaad ee dhakhtarka iyo badbaadada hooyada iyo ilmaha waxaana dhakhtarkani uu ku dadaalaa ka jawaabidda baahida caafimaad ee bulshada kaas oo soo dhaweeyay tiri bukaano kale oo kaga yimaada dhakhtarada kala duwan ee magaalada madaxda agaasimka ayaa ku rajo weyn tiri in uu sii xoojiyo adeegga caafimaad ee bulshada iyagoo markaasi kor u qaadaya waxqabadkooda wakaalada hay'adda bisha cas ee Djibouti ee gobolka Tajoora ayaa ku qaban qaabsay munaasabad lagu xusayo maalinta caalamiga ee bisha cas taas oo ka dhacday degmada Qalaf sanadkani hay'adda bisha cas ee adduunka ayaa halkudhig u dooratay xuska maalintani caalamiga ah meel walba iyo cid walba maalintani waxa ay ku beegan tahay asaaska hay'adda bisha cas ee caalamiga ah munaasabada xuska maalintaasi bisha cas waxaa dadweynaha halkaasi ku dhaqan laga wacyigeliyay waxqabadka hay'addaasi bisha cas wararka halka isboortigana daawadayaal orodyaanka da'da yar ee reer Djibouti ee Jamaal Cabdi Deeriye ayaa waxa uu ku guuleystay orodka 5000 mitir ee horyaalka orodada ee jaamacadda Carabta oo ka socda dalka Algeria orodyaan Jamaal Cabdi Deeriye ayaa orodkaasi ku guuleystay kadib markii 3 maalmo ka hor uu sidoo kale ku guuleystay orodkii 10000 mitir sidoo kale isla horyaalkaasi orodyaanada jaamacadda Carabta ee tartankaasi orodyaanka da'da yar ee reer Djibouti Cabdi Fataax Daahir Cawaale ayaa kaalinta saddexaad soo galay orodka 1500 mitir xiriirka dalada guud ee jaamacadda Carabta oo qaabilsan xagga orodada ayaa jamhuuriyadda Djibouti ku amaanay kaalmaha wanaagsan ee aanu ka soo galnay orodada halkaasi ka dhacay qodobka ugu dambeeya warkayga daawadeel waxa weeye barnaamijka dalka Greega ayaa ansixiyay xeer dib habeen loogu sameeyo cashuuraadka iyo muddada lagu noqdo hawlgabeen sidaasi waxa dawladda Greega ka dalbay hay'adda deynta kule ee midowga Yurub iyo sanduuqa adduunka ee lacagta ee FMI mashruucaasi xeer dib habeenta waxa uu codeeyay 153 oo kamid ah xisbiga dalkaasi ka taliya iyo xisbiyada ay isku dhow yihiin balse mashruucaasi uu ansixiyay baarlamaanka Greega waxa ka dhashay isku soo baxyo looga soo horjeedo daawadayaal intaas waxa ku idil war wixii dalka iyo dibadda bay naga soo gaadhay waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan farsamayaqaanada iyo wariyaasha nagala qayb qaatay warkayga caawinta warkan war lamid ah ku kulmi doono nabadgelyo iyo amaan Allah